عادي بس سومالي لاند ما dhici doonto haddii Soomaaliya ay nabad noqoto inay ku soo biirto oo dawladda xaq laga sameeyo okay waan gartay Soomaaliya haddii dawlad noqoto umalayn maayo in Soomaaliland ku soo biirayso sababtoo ah wax 20 sanadood dad 20 sanadood meel ku dhaganaa aaminsanaa horumar sameeyay inay dib u noqdaan umalayn maayo inay ku dhacayso dib u noqosho hadda adduunkiina waa diiday inay ictiraafaan haddii la ku rooyahay shalay dawladda saaxiibka kugu dhow Ethiopia ay ahayd shalay waxa uga subinaysay maxaa rajada aan Somaliland baan weydiinaya rajada qaba oo boqolkiiba 95 maadaama anagu aan isku kalsoonahay aan wax dhistay horumar gaaray aan haday dadkayga ogol yahay wadankii aniguna waxaan aaminsanahay maadaama sidaas in ay dadkuna ay aamini doonaan waxaan aaminsanahay ay caalamku aaminsanaan doonaan ay horumarkayga iyo wadanimadayda ay jeclaan doonaan taasaa sabab u ah in waxaan haday ictiraaf galo hadda Soomaaliya iyo Somaliland wada hadal aan bilowday wada hadalku sidoo qabiya meesha lagu joojiyo laakiin wali way socotaa maxaa diiday wada hadalkaas socday maxaa diiday wada hadalkii waxa toos gareeyay maadaama ay dawladii hore ahayd dawlad ku meel gaar ah oo meesha ka baxaysa dawlad kale cusub soo socoto oo rasmi ah taas baan doonaynaa inaan la dhiil garayno oo aan waxayga kala hadalno waxaan idhaahdaa oo aanu cilaaqaad yeelano siyaasadeed sida Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya oo leeyahay saas oo kale